Assalaamu calaykum. Casharkan waxaan ku baranaynaa operating system. Software-ka loo yaqaano operating system ayaan casharkan ku baranaynaa. Software-ka loo yaqaano operating system macnihiisuna yahay kan ama software-ka uu kusoo kacayo computer-ku. Markii computer-ka waxaa loo kala qaybshaa software-kiisa system software iyo application software. System software hadaa maqashid waa operating system. Marka Windows-ku waa operating system. Operating system hadaad maqashid waa Windows. Marka meeshan waxaan ku baranaynaa operating system-ka loo yaqaano Microsoft Windows 10. Operating system-ka loo yaqaano Windows 10. Microsoft Windows 10 ayaan ku baranaynaa. Haddaba haddaan slide-kan isla fiirino waxaan arkaynaa intaan computer-ka u guda gelin waxaan leenahay what is Windows 10? Windows 10 maxaa loo yaqaanaa? Marka wuxuu ku leeyahay Windows 10-ka system software waa system software. Waa system software waa kan uu kusoo kacayo computer-ku. Kaasoo ismake sameynaya the computer working. Computer inuu shaqeeyo ayuu sabab u yahay uu leeyahay. Developing by waxaana soo saaray Microsoft ay soo saartay. Shirkadda Microsoft ayaa shirkadda develop garaysay operating system-ka loo yaqaano Windows 10 iyo weliba Windows oo dhan Microsoft waa samaysay. Waxyaalaha kale ay samaysana waxaa ka mid ah Office-ka noocyadiisa kala duwan sida Microsoft Word, Windows maxaa la yiraahdaa Excel, PowerPoint, Access iyo wixii la mid ah. Without system software hadduu computer-ka uu ka maqan yahay Windows-ku. Without system software hadduu computer-ka Windows uu ka maqan yahay, computer is not run ma soo kacayo and work mana u shaqaynayo. Haddaba tusaalooyinkan kusoo gabagabaynaynaa. Tusaalooyinkani waxa weeyaan tusaalooyinkani waxay ka turjumayaan operating system ama system software. Waxaa ka mid ah kow ka ah Windows. Windows waa kan hadda aan baranayno. Calaamadihiisa iyo barnaamijyadiisa hoos baan u geli doonaa. Sidoo kaleeto waxaa ka mid ah Linux oo ah barnaamij oo open source ama la heli karo markasta. Haddase aan markasta hadda aan badnayn oo hadda badanaa la isticmaalin. Iyo Linux oo kasoo farcamay marka horeeto asalkiisa ka yimid Unix ka yimid waa Linux haddana waa sii farcamo aad u farabato noocyo kala duwan ayuu leeyahay. Ilaa iyo waxaa jira hadda Unix marka loo fiirsho Linux-kan ilaa iyo 50 ilaa iyo 100 ku dhawaad nooc kala duwan laga sameeyay ilaa 50 nooc oo jiraan hadda. Qaarkoodna waxaa loo isticmaalaa barnaamijyada cyberka ayaa loo isticmaalaa. Qaar kaleetana si caadi ah loo isticmaalaa laakiin isticmaalkiisu sida Windows-ka kale uma badna. Kan ugu dambeeyana waxaa la yiraahdaa operating system-yada computer-radu isticmaalaan waxaa ka mid ah Mac OS. Mac OS macnaheedu wuxuu yahay waa kan ay iska leedahay shirkadda Apple oo soo saarta iPhone-ka. Computer-radeedu barnaamijka ay ku shaqeeyaan waa Mac OS. Computer-kaagana waa ku shuban kadhaa laakiin kan ugu isticmaalka badan dunida ee adduunyada loo isticmaalo waxa weeyaan Windows weeye. Windows-ka ayaa ugu caansan.